dib u heshiisiintu waa hala wada noolaado wey ummaddu ha wada noolaato qof keligiis noolaan kara ma jiro magaaladan kama maaranto gurceel kama maaranto balanballe kama maaranto xeraale cadaade iyo caabuq kama maaranto iyo maxaan ku yiraahdaa gaalkacay waa la isu wada baahan yahay marka in aan is ogolaano inaan wada noolaano way waxa mustaqbalkeena ku jiro qof gaar u taagnaan kara ma laha dib u heshiisiintu waa process waa wax socda waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn maxaa yeelay bini aadan baa leeyahay khilaafaad waa imaan waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo waxa wanaagsan ay kasoo dhex bixiyaan oo ummadda midayn kara ama isu keeni kara waxaa ilaahay mahadiisa inaan colaadii god ku ridnay dadkii ay heshiis noqdeen maantana ruux kasta ee hoorshe iyo xeeraale jooga inuu gurigiisa u hoyanaayo oo nabad ku seexanaayo arrintaasuna waxay tusaale u tahay dib u heshiisiintii qaybta ugu muhiimsaneed ayaa halkaas ka soo samaynay labada maalmood aan ka shaqaynayna halkaas waxaan rabnaa inaan isla fahamno dad badan uma fahamsana dhibkaas intuu la ekaa markaan meesha tagnay dadka ku geeriyooda muddo 3 sano ku dhawaad ah waxay gaarayeen 79 ruux ayaa ku nafaweysay dagaal qaraabo amba dagaal sokeeye dad qaraabo ah oo walaalo ah ayaa intaas ku geeriyooda colaad marka waxay noqotay qoys dhexdiisa ka dhacda arrintaasna waxay ahayd guul weyn u soo hoyataa galmudug walaalayaal waa farxad weyn caawa in tallaabadii saddexaad ay noo soo gabagabowday aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa cid walba federaal iyo dowlad goboleed dhaqan iyo ururo bulsho cid allaalaya ciddii gacan ka geysatay ilaahay ha ka jazeeyo hawshaas noo soo dhammaatay waxaan rabnaa waqtiga aad ku beesheen gaar ahaan dhaqanka iyo hay-adaha dawliga heerkay rabaanba ha ahaadeene hawshii aad ka soo qabateen aad iyo aad ugu mahadsan tihiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa guddiga doorashada la samaynayo iyo xuduudaha iyo wixii la mida iyo doorashada lafteeda iyo odayaasha ilaahay tawfiiqda idin waafajiyo xildhibaanada aad xuli doontaan iyo dadka ay dooran doonaanna dad fiican allah ka dhigo runtii dadaalkii madaxweynuhu bilaabay waxaa la dhihi karaa ra-iisul wasaaruhu waa kasii miro dhaliyay ayaa la dhihi karaa muddo 2 bilood oo dhow ah ayuu halkan joogay isu imaatinka halkan la isugu yimid oo isugu timid galmudug oo dhammaystiran oo ciroole uusan u maqnayn caqlina u maqnayn ay isugu yimaadeen waxaa la dhihi karaa waa dhabowday galmudug kulankan oo kaleeto oo sidaan la isugu timaada galmudugna ma aysan dhicin hadda ka hor in sidaan u buuxsanta galkani ee dowladdii federaalka Soomaaliya iyo galmudug oo aan kala maqnayn oo u taagan midnimada galmudug
walaalaynta galmudug, islaaxa galmudug, hagaajinta galmudug. halkan hadda ka hor kama aysa dhicin kulankan oo kaleeto. waxaan rajaynaynaa waa ififaalo wanaagsan, ififaalo ifahaya oo ay galmudug ku tillaabsanaysa waaye. dowladduna waa inaysan ka harin, annaguna waa inaan u tafaxiidano sidii loo heli lahaa galmudug oo mid ah, galmudug macno leh oo muuna sarreeya leh, galmudug la tartanta waalkooda, galmudug dekadaheeda dhisata, galmudug deegaamadeeda difaacata, galmudug dadkeeda xorayda, galmudug aan isdhakanaynin, galmudug mid ah waa inaan u istaagnaa.